kulanti waxaan saaxiibay dhammaantiin meel kasoo joogtaan kusoo dhawaada janalka Bashiir Maxamed Beerdaro fadlan subscribe like oo share sheekooyinka warbixinada wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta halkan soo geliyo kusoo dhawaada warbixin xiiso kooban oo ku aadan xidigii cajiibka ahaa Zlatan iyo sameysiga laacibka Zlatan ayaa kamid ahaa ciyaartoydii ugu fiicneed ee soo martay kubadda cagta daba waxaan idinla wadaagayaa waa sidee sameysiga laacibka Zlatan Ibrahimovic waxa ay u doortay goolahayaha weyn ee qabiirka aadkana loogu kalsoon yahay qabashada qaybta dambe ee goosha Julio Jobovan kaas uu dhashay wadanka Talyaaniga daafacyada ay u soo qaatay xididlayaasha ay adag tahay in la jeero isla markaana la laafo habdifaaceedkooda kuwaas oo kala ah Cannavaro, David Silva, Lilian Thuram iyo Maxwell halka qaabeyaasha khadka dhexe oo maqaawir la soo geeyana ay kala yihiin Xavi, Paul Nedved, Patrick Vieira, Andreas Lujan labada weerar oo halisidoo adkaanayso in laga difaaco shabaqada ayuuna u soo qaatay isaga oo ah Zlatan Ibrahimovic iyo mucjisada kubadda cagta Lionel Messi waana saf xoogan isla markaana aad u adag waana sameysiga laacibka ee uu soo xushay xidiga weyn Zlatan oo isagu ahaa waqtigiisa mid kamid ah kuwa ugu saameynta badnaa ee kubadda cagta ana sheeko kooban oo xiiso leh oo aan ku eegaynay waa kuwa sameysiga laacibka ee uu sameysan lahaa halyeeygi weyn Zlatan iyo ciyaartooydu jecel yahay in isku saf ay ka dagaalamaan waa saf xoogan oo wadata saameyntooda iyo qatartooda halista ah yaa is leedahay waa saf kale adag kuwaas oo babac dhigi kara awoodda kooxdan uu soo xushay Zlatan taas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambena sidaas nabadgelyo